بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة قيمه بدن كسر دو أبيكتيك فضلا هدي channel kan ku cusub tahay in xad ka qabtaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe saaratid sidaas la mid ah muuqaalka la gelisid asxaabtada la soo wadaagtid wixii faahlo dheeraad ah u baahan tahay in comment aan la soo wadaagtid insha Allah hadii jawaabtada ay tahay waxba kama qabo fadlan nagu soo biir maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa asxaab kamid ah oo ka soo caawatay temporary si kumeel gaar ah in commentigooda block loo saaray ama disabled loo saaray inaan isla xalino haduu ala yiraahdo sida halkaas kaaga muuqato waxaa loo dhahay you have been temporarily blocked from performing this action marka waxa u baahan tahay two option ayaa isla mari doona haduu ala yiraahdo labadaas option waxay noqon doontaa laba option oo basiid ah aad adiga sameyn kartid hataa mid saddexaad oo idinku daraya way sababtoo ah qof waliba xalkiisa meel ayuu ku jiraa marka insha Allah waxaan isla bilaawi doonaa muuqaalka faahfaahsan ugu horreyn horta waxaad tagi doontaa Google Play Store markaad tagtid waxaad sameyn doontaa qayb ay ku qoran tahay Facebook ayaa tagi doontaa hadduu update ku ahayn halkan update ayaad update dhahi doontaa waayo commentiska haday bixi waayeen waa ina horta softwareka applicationka Facebook la dhahayo waa ina soo dhawan gareysaa update aad dhahdaa marka update aad dhahdid waxaad sameyn doontaa qaybta oo waxaad tagi doontaa Facebook markaad tagtid waxaad sameyn doontaa bosti qof soo dhiga camal ayaa comment ka bixin doontaa haduu alla yiraahdo haduu commentigaas failed uu ku soo qoro marka xalkiisa ayaa isla sii wadi doonaa haduu markaas uu ku xalismani waa xalismay kadib waxaad tagi doontaa saddexdan dhibic markaad tagtid sidana ugu dhufatid waxaa ku dhufan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay settingaas markaa ku dhufatid sida halka kaaga muuqato wuxuu ku soo saarayaa profile-kaaga iyo ayuu ku soo saari doonaa insha Allah waxaa ku dhufan doontaa qaybtaas ay ku qoran tahay profile settings hadaa ku calaameeyo qaybtan ay ku qoran tahay profile settings ayaa ku dhufan doontaa markaas sidaan ugu dhufati waxaa raadinaysaa activity log midkaas ayaa ku dhufan doontaa activity log markaa ku dhufatid qaybtan iyo waxyaalahana iska bedeli doontaa sida halka kaaga muuqato tags comments waa kana qaybtan ay ku qoran tahay comments qaybtaas ayaa ku dhufan doontaa qaybta commentiska markaa ku dhufatid wuxuu ku soo bandhigayaa commentiyada aad ka baxsatay maaragtay postiyo badan groupyo badan iyo maaragtay qof friendskaaga ama privacy ahaado aad ka baxsatay jirto kadibna waxaad sameyn doontaa waa clear garay doontaa hadaa clear aad dhahdid insha Allah kaas waa delete kartaa taas waa ka soo gudbeena waxa sameyn doonaa marka profile-kaaga ayaa tagi doontaa profile-kaaga markaas sidana u tagtid waxaad sameyn doontaa screenshot ayaa ka qaadi doontaa haduu alla idmo screenshot markaas sidana ugu qaadid waxaad sameyn doontaa screenshot ka qaaday dib ayaa u laaban doontaa waxaad tagi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay helping and support ayaa ku dhufan doontaa kadib waxaa kusii dhufan doontaa report a problem ayaa ku dhufan doontaa report a problem markaa ku dhufatid waxaa dhihi doontaa continue report a problem qaybta hoose continue report a problem markaa ku dhufatid great report a problem waxaa dhihi doontaa including report a problem qaybta oo buluuga ah sidaas la mid ah hoose ayaa u socon doontaa meeshan waxaa ka raadi doontaa qayb ay ku qoran tahay privacy qaybtan ay ku qoran tahay privacy waa qaybta inta kugu calaameeyay privacygaas ayaa ku dhufan doontaa markaas sidaan ku dhufatid kan waxaa soo gelin doontaa laba sawirood waa comment failed haduu ku soo qoray screen ka qaadi doontaa sidaas la mid ah profile-kaaga screen ayaa ku soo qaadi doontaa ana waa kana qaybta profile-ka ayaan soo qaatay kadib waxaa sameyn doonaa halkan qoraal ayaan ku qori doonaa qoraalkaas oo ah inaan dhahayo qoladaas waa liga xayray barnaamij oo noocaas oo kala ah inaan u sameyn doono waa kana waxaan dhahay hello sir my comments block commentiga waa block diray please unblock my comments I am requesting for you waxaan ka codsanayaa in maaragtay codsigaas ay tixgelisid kadib waxaad sameyn doontaa ugu dambeyntii
waxaad tegi doontaa calaamada sandiga ah. calaamadaas ayaa kusii dhufan doontaa. ana hadda ciladaas ima haysato. waxaan jeclaystay asxaab walaalaheyga ah inaan ku caawiyo hadduu alla yiraahdo. marka maanta muuqaalkeena halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. waxaan idin leeyahay tan intaan kulmi doono muuqaal caynkan oo kale ah, muuqaalkan la mid ah. waxaan ku leeyahay haddii aad nagu cusub tahay waxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe aad saaratid, sidaas la mid ah asxaabtaada la sii wadaagtid, muuqaalkana la gelisid. haddii aad tahay wax kama qabo insha Allah nagu soo biir si aan maaragtay xoog badan iyo barnaamijyo badan oo la xiriira tiknoolajiyada iyo ay shay aad adigu u baahan tahay aad channelka inaad kusoo kordhisid fikradaada ah waan sameyn doonaa hadduu alla yiraahdo. haddaa fikrad qurux badan oo dadka ka gadmaysa noo haysidne xaqiiqatan summa wallahi ballan ayaa idinka qaadaya, waa idin soo sameyn doona insha Allah. tan inta kulmi doono muuqaal caynkan oo kale ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. gabagabadii iyo gunaanidkii ugu dambeyn, intaa yar tahay ama intaa dhalinyaro aad tahay waqtigaagana ka faa'iideyso. bye bye.